inkastoo ay kooxina ballan rasmiyaanay ka aysan mar kale Arsenal caqabadii Newcastle ayay ka gudbeen kadib gool ay dhaliyeen ciyaarta bilowgeeda. Arsenal ayaa ciyaartan si dhaba soo jeed uga muuqday iyagoo ay u ciyaareen si weyn waxaana laga dareemayay inay muhiimadda siinayaan guusha in ka badan bandhiga. Haddii afarta kulan ee soo aadan ay sidaasi ku ciyaaraan hubaal way guulaysan doonaan kuwani, balse waa haddii City ay isballaqdo. Laakiin laftarkeeda Arsenal haddii ay muhiimadda sida ay kulankan diiradda u saareen hamuuntuna uga muuqato waxay tahay mid ay ku haraad bixi karaan faadmo saarana xilli ciyaareedkan la aroosi doono. goolka quli ciyaarta lagu kala baxay waxa dhaliyay xidiga Isa kadib markii loo soo laaday koorna dhulka ah oo uu ka helay xidiga Kai Havertz kaasoo markaasi kubadda u gudbiyay Isa kaasi oo isna markaasi isaguna darbad xoogan oo qurux badan kasoo tuuray geeska xerada ganaaxa isagoo kubadda ku dhex hubsaday shabaqa kooxda Newcastle. guushan muhiimka ah kadib Arsenal waxay dhibcaheeda kor ugu qaaday 73 dhibcood iyadoo fadhida booska koowaad ee Premier League. dhanka kale Newcastle ayaa weli ku jirta kaalinta 14aad iyadoo leh 42 dhibcood, balse hadda haragga kala baxday xaaladaha cimilada bedelan ama heerka labaad loogu noqdo maadaama 40 dhibcood ay gaadheen. Man City ayaa hadda u dhacday kaalinta labaad iyadoo leh 70 dhibcood, balse waxaa xusid mudan inay u dhiman tahay hal kulan oo baaqi u ah way la ciyaari doonaan kooxda Crystal Palace maadaama kooxdan ay FA Cup ku mashquulsanayd. kulanka markaynu si gaara isu dul taagno kulankan baahidu Arsenal way ka muuqatay 11 isku day oo ay samaysay, afar ayay ku aadisay, hal waa uga hirgalay. 13 isku day oo kooxda Newcastle samaysay, 3 ayay ku aadisay oo ay ku diiradaysay goolka. kubadaysashada arxan iyo agas kamay gelin kooxda Arsenal oo 45% way ahayd Newcastle bay ku tiri iska hayso inta badan 55% ayayna Newcastle ahayd. 397 baas oo ay samaysay kooxda Arsenal waxa ku tusinaya inay muhiimaddu ahayd 3 dhibcood oo kaliya. 320 ayayna dhamaystireen. 480 baas oo ay samaysay kooxda Newcastle 410 ayay dhamaystireen. taakaladu waa haldheeri waa 15 iyo 16, halka fawliskuna ay yihiin 13 iyo 10 Newcastle. 7 koorna oo ay ahayd kooxda Arsenal ku caana maashay midkood waxay ahayd wixii reer Arsenal ay maalmahanba quudanayeen. waa reer koorna quute wuxuuna noqon doonaa haddii horyaalka qaadan horyaalkii u horeeyay koorna lagu qaado. 3 koorna ayay halka Newcastle kulanka ay ka heshay. xidiga bandhiga sameeyay isagu goolkana u keenay 8 waa Ibrahim Isa 18 taabasho 11 baas 3 shoot 1 shot on target oo mid ka hirgalay 3 loolana guuleystay 1 dribbling fahamta calay shay kullu kalaam madfuuc wuxuu mid automatic u dhacay remote-kiisana la hagayay. sidoo kale xidigan Isa ninkani maalmaha cadceedu soo jeedo yaa high class buu yahay. match ilaa May 24 gool baa la dhaliyay 49 game oo la ciyaaray. ninkani cadceeda marka Yurub hesho ama dalka uu joogo waa high class. August ilaa February 21 gool baa la dhaliyay 111 kulan oo la ciyaaray. Abdow ninkani waa nooca cadceeda yaa waa dadkii saxda ahaa. cadceedba hadduu arko yaa isagu waa shaqaysanaya, shabagana waa u gaadhaya muddo kooban oo wuxuu yahay mid high class bandhigi. dhinaca kale kooxda Liverpool maalintii way maxamadeysatay kaalinta afraadna way soo fadhiisatay kadib Crystal Palace markii ay garaacday. Liverpool ayaana hoggaanka qabatay daqiiqadii 34aad markii Isaac uu gool u dhaliyay kadib caawin uu ka helay Alistair. kadib Liverpool ayaa dhalisay goolka labaad daqiiqadii 41aad waxaana dhaliyay Robertson oo caawin ka helay Courtois Jones. Palace ayaa yareysay farqiga daqiiqadii 72aad waxaana goolka u dhaliyay Munas kadib markii xidiga Mohamed Salah uu ciyaartani ka dhaawacmay sariirtana meher ku xidhay. Witis ayaa dhaliyay goolka saddexaad ee Liverpool daqiiqadii 90aad markay kor u dhaaftay waqtigii lagu daray tii 6aad, taasoo xaqiijisay guusha kooxda martida loo ahaa. guushan kadib Liverpool waxay gaadhay 58 dhibcood iyagoo galay kaalinta afraad iyagoo kaga hormaray Aston Villa farqiga goolasha halka Palace ay u hadhay 43 dhibcood oo ay ku jiraan kaalinta 13aad. laakiin Liverpool kulankan may mahadin Mohamed Salah ayaana sariirta meher ku xidhay way soo laabteen cascaskiina. kooxda Man City maalintan dhanka kale ayay ka mashquulsanayd kadib markii ay Southampton ay haragooda ku tukadeen 2-1 ku garaaceen. madfaca xidiga Nico Gonzalez ayaa dhaliyay goolka Man City finalka FA Cup iyagoo soo laabasho sameeyay ciyaar adag oo City awood badan iyo dadaal uga baahatay, laakiin ugu dambeyntii hadafkoodii way gaadheen. Pep Guardiola tiijarka bilaatinta waa mid tabaabishiisu yahay mid uu dhan kastaba uu rabo inuu kooxdani xilli ciyaareedkii saadaasha xun laga bixiyay uu yiraahdo waa been waxaasi oo waxaan ahay mid higsanaya halkii loogu talagalay. 26 shuud ay tuureen 6 bay ku aadiyeen halka 4 ay tuurtay Southampton 3na ku aadisay. kubadaysashada way ku raaxaysteen 70%, 620 baas bay sameeyeen, 560 ayay dhamaystireen. taakaladu waa 6
9 faawal iyo 10 koorna oo kulanka waxay ahaayeen kuwa iska leh kooxdan Man City sidoo kale 6dii kulan ugu dambeeyay high class bay ahayd. Arsenal bay garaaceen 2-0, Liverpool 4-0, Chelsea 3-0, Arsenal mar kale 2-1, Burnley 1-0, Southampton oo ahayd kooxdii harageeda ku soo tukatay iyaga ahaa 2-1 ayaa finalka lagu tiigsaday. la kala guranog la kala goosanog laguna kala guulayso. dhinaca kale kooxda Barcelona iyaduna maalintan way cabdiyeysay 85 dhibcood ayay gaadhay horyaalka La Liga oo waxay ahaadeen kuwo ka faa'iideystay mar kale 11 dhibcoodna hoggaanka ku haya hal tallaabana u qaaday hanashada horyaalka La Liga in loo caleema saaro. maalintan waxay goolashooda uga mahad celinayaan Lopez oo markaasi isagu u dabaaldegay sidii Lamine Yamal isagoo maaskarihiina xidhan. Rashford ayaa ka kale ku daray Barcelona burahaanteedii mar kale waxay leedahay aniga La Ligaha marka halka la joogo waxba laygama qaban karo. 11 kulan ee ugu dambeeyayna waxay yihiin kuwo aan marnaba dhinacooda dhulka la dhigin. dhinaca kale markaynu eegno kulamadii dhacay kooxda Tottenham way guulaysteen taasoo sii holcinaysa tartanka kooxaha heerka labaad u noqonaya. Spurs ayaa xaqiijisay guushoodii ugu horeysay tan iyo sanadkii 2025 oo guul niyad dhis u noqon karta kulamada hadhay ee horyaalka. ay waqtigaasi De Zerbi iyo inamadiisu ay gaadheen maalintan maalmaha ka tilmaaman inay horyaalka qaadeen waxaan ahayn ugumay dhignayn goolka Balhinha daqiiqadii 82aad uu ka dhaliyay kooxda Wolves. maalintan dadaalkoodu wuxuu ahaa mid halkii loogu talagalay ku dhammaaday maadaama maalmihii dhoweyd intay dadaaleen goor dambe haragooda lagu tukanayay. kooxda Bayern Munich waxay ahayd mid mucjiso samaysay maalintan maalmaha ka tilmaaman kadib markii 3-0 qaybtii hore loogu riday. laakiin maxay kaaga taallaa xidigii tuurta lahaa in midkood shabagga isagoon soo taaban uu baxo xaaraam caleeg baan kuuri. 4 ayay ugu bedeleen dhallaankii haragoodana way ku tukadeen. waxaasaa koox lagaa yidhaahdaa macallinku markuu qorshe kuu soo dego qaybta labaad waa waxyaabaa lagu kala garto macallimiinta go'aamiye kulamada. xubintu waa kariskii iyo kala haadintii anigu waxaan ahay Maxamed Tirike. midda xigta intaynu ku kulmi doonno inta ka horraysa yaan lagu karsanay haysballiqin sida yaa maana Allah.